Haweeney weerar ku qaaday arooska ninkeeda iyo xaaskiisa labaad. قبضت الزوجة على زوجها يتزوج زوجة أخرى. si aan ugu dagalno muuqaalkan walaal waxaanu ka codsanaynaa inaad like saarto muuqaalkan share garayso si saaxiibo badan u gaaro sidoo kalena aad ku soo biirto page-kan Cabdikariim Cali Aadan mahadsanidin badan. Janvier waa hooyo leh 5 carruur ah iyadoo ku sugan gurigeeda isla markaana shaqadeeda maalinlaha wadatay ayaa waxa uu soo dhacay taleefan gabar ay is yaqaanaan waxaana lagu wargeliyay in saygeedu uu haweeney kale la guursanayo oo la qabanqaabinayo xafladda arooskiisa isla markaana maalinkaasi ay dhacayso. maadaama war degdeg ah loo soo sheegay naxdinna ay ku noqotay waxa ay go'aansatay in ay si degdeg ah ku tagto halka uu ka dhacayo arooska saygeeda aadna ayay ugu degdegtay. Janvier waxaa qaadan waa ku noqotay in ninkeedu uu naag kale la guursado waxayna go'aansatay in ay arooskaasi banado amaba ay joojiso. Janvier socod dheer kadib waxa ay gaartay halka ninkeedu uu haweeneyda kale ku guursanayay la iskulana xirayay maadaama aysan waqti badan haysan xilli dambana loo soo sheegay. Inkastoo uu ninku warmoog yahay una haysto in aysan xaaskiisa aysan ka warhaynin ayaa haddana waxaa goobtii timid Janvier oo carruurteeda wadato aadna u kacsan oo dagaal isku diyaarisay. Janvier ayaana ninkeeda haweeneyda kale la guursanayay durba dagaal ku bilowday iyadoo cunug ay wadatay dhulka dhigtay ilmihii kalena waxa ay bilaabeen in ay ooyaan maadaama hooyadood halkaasi ay dagaal ka bilowday jawiguna isbedelay. Sidoo kale Janvier ayaa u baxsatay haweeneyda kale ee ninkeedu guursanayay inkastoo dad badan oo xafladda arooskaasi ku sugnaa ay ka celiyeen Janvier in ay gabadha kale iyo ninkeeda ay disho si uusan u qaldamin habsami u socodka xafladda arooska. Dhinaca kale ninka iyo xaaskiisa cusub ayaa lagala cararay goobta si ay xaafadda oo goob ammaan ah u tagaan waxaana dadkii goobta ku sugnaa ay Janvier ku qanciyeen in ay wax waliba caadi ka dhigto iyo in ay caadi tahay in ninku haweeney kale la guursan karo xaajigeedana ay iska imaansato oo aysan markaasi dagaal iyo sidoo kale furiin aysan ka dalban maadaama markii ay goobta soo gashayba ay dagaal ku bilowday saygeeda oo caruus ah isla markaana lagu xirayay haweeneyda markaasi u dhixi doonta amaba uu la aqalgalayay. Dhacdadan ayaana maalmahan dambe qabsatay baraha bulshada ee Afrika.